waxaa soo baxay tuhun ah in safaaradaha ay kala qaateen madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaana xoguhu ay sidoo kale sheegayaan in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed isbahaysi ay sameeyeen iyagoo markaana ay u muuqdaan in waayihii qurxoonaa ee filla Soomaaliya iyo maamuladaas ay gabangaba yihiin. madaxweynayaasha labadan maamul ayaa qarka u saaran inay soo gabangabeeyaan xiriirka kala dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida xogaha soo baxay ay tibaaxeen. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo Axmed Islaam Axmed Madoobe oo ku kala shaqeeya Koonfur Galbeed xarunteeda ku meel gaarka ah Baydhabo iyo sidoo kale xarunta ku meel gaarka ah Jubbaland ee Kismaayo ayaa sabab u noqday inuu baaqdo shirka golaha wadatashiga qaranka ee sabdida uu ahaa qorshuhu inuu qabsoomo. waxaana la sheegay in labadan maamul ay qadka taleefanka madaxdooda ku wada hadleen arrimo dhowr ahna la isla lafuguray kuwaasi oo sababay in ugu dambeyn shirkaasi wadajir inay u baajiyaan ay go'aan ku gaaraan. shaki xoogan ayaa jira kaasi oo ah in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni dhankiisa uu ku lug leeyahay arrinta baaqashada shirka golaha wadatashiga qaranka uu iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in Deni Axmed Madoobe iyo Laftagreen ay kulamo qadka taleefanka wada yeesheen xogo hoose oo ku aadan ayaana suurtagalnimadoodu waxay tahay mid aad u sii xoogaysanaysa iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedkaas horey uusan uga qayb galin shirarkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka oo lagu gorfeeyay arrimo ay ka mid ahaayeen in dastuurka la furo oo dib eegis lagu sameeyo keentayna in 4 cutub ugu horeysa dastuurka la dedejiyo. waxaa xoguhu ay tibaaxayaan in labadan madaxweyne maamul goboleed dhankooda ay wataan qorshe gooni ah oo ay ku cadaadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo dhankooda ay u soo ifbaxday tuhun ah in la doonayo in marka muddaxileedkoodu uu dhamaado kuraasta laga wareejiyo oo shakhsiyaad bedelkooda ah loo dhiibo labadaas maamul. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa cabsida ugu weyn qaba maadaama filla Soomaaliya durba ay bilowday dhisida shakhsi isaga ka soo horjeeda si doorashada soo aadan ee Koonfur Galbeed uusan ugu soo laaban. arrintaas ayuuna gadood badan ka muujinayaa oo uu ku colaadinaya dowladda dhexe. Axmed Madoobe dhankiisa wuxuu ka cabsi qabaa maadaama muddo dheer uu joogay hogaaminta maamulka Jubbaland isla markaana waqtigiisa loo arkay inuu gabangaba yahay haddana dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka shaqayn doonto si dhug cusub loo keeni lahaa maamulka Jubbaland oo Axmed Madoobe oo tan iyo asaaskeedii hogaaminayay looga wareejin lahaa. waxaa xogaha hoose ay sheegayaan in labadan madaxweyne ay doonayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka hore uu u cadeeyo meelna u saaro soo laabashadooda iyo in dowladdu ay kala shaqeynayso in mar kale dib loo doorto kadibna dhankooda ay kala shaqeyn doonaan dowladda dhexe daadejinta qorshayaasha horyaalla sida dastuurka iyo arrimo kale oo dhowr ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirka golaha wadatashiga qaranka ee uu iclaamiyay ee baaqday muddana dib loo dhigay haddii uu qabsoomi waayo waa fashil siyaasadeed oo xooggan oo dowladdiisa soo wajahay. waxaana sidoo kale arrintan ay xoojin kartaa tuhunkii ahaa in dowladda Itoobiya ay ku lug leedahay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada siyaasadooda oo ay dhaqaale fara badan ku bixisay sidii loo kala furfuri lahaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si awoodda dowladdu ay ku wajahday heshiiska ay la gashay Itoobiya loo wiiqo maamul goboleedyadana xiriiro hoose Addis Ababa ay ula samaysato.